وما للمورنكيو أكيد مهاري وما ليلا أي ما شري المال مخشي الرباط كقاضي دولة إنجليزكا هنبلي يمر لبعض حد كشون إلهي حن كرتشين يا بشابش إنه هرم الرأي هرم الجاردين إن أول با إن الله يدور كرتشين Somaliland waxay leedahay taariikh ballaaran waxaana ay ka mid tahay meelihii ugu horreeyay ee ay shisheeyuhu la soo sameeyeen xidhiidhadii ganacsi intii ka horreysay qarnigii 19aad ee taariikhda milaadiga bulshada reer Somaliland oo isugu jirtay xoolo dhaqato beeraley iyo kalluumaysato waxay ahaayeen qaar isku maamula xeerar dhaqan oo u ekaa qaab dhismeed dawladnimo oo bulshada lagu hogaamiyo iyagoo ay xeerarkaasina inta badan ku saleysnaayeen waayaragnimo hore u soo martay iyo duruufaha la xidhiidha noloshooda iyo hadba xaaladda la soo gudbanaata waxaana kaalinta koowaad ee maamulkaasi qaadan jiray madax dhaqameedyada sida salaadiinta iyo cuqaasha ingiriisku ma iman odayaashu geedka isla tegayeen wax alla wixii dawladda qaban lahayd oo dhan iyo si official ay ugu qabanayeen iyagu waxay dhacamay ogolayn wixii jira may ogolayn wax ceeba may ogolayn odayaasha ka tashanayay wax alla wixii yimaadaba geedkaas balisa tagay geedkaas ma lagu soo dhameeyay dadku xoolo dhaqato ahaayo hada Soomaalidu geelay aad ugu baasay baa geelay aad u qaadi jiray faraskii baa lagu qaadi jiray faraskii baa faraska gaadhay tignika ma jiray faraska tignika 15 had baa fardaha qaar siin jiray sidoo kale baxsan yihiin faraska sagiya lagu qaadi jiray ka dambe geeri ma ka dhacay ama mid carabaan ka tagay baa Soomaalidu way istaraysaa baa la yiri maxay isku leeynaysaa kulli fidma cinda geel buu yiri geel ma isku jiray wax kale ka dhaxayaan buu arinku sidaas oo ahaa saasi oo sheeniyeen kolkii arinku haduu ka xamaday laba qof wax iskaga dhintaan oo yeesho way sii yimid jireen waxay u jireen waxaan dhaqi maayo aynu nabad sameeyno nabadaasi ku heshiin jireen way isdaarsan jireen kol haday kitaabka gacanta saaray wax daba ka soo noqon jiray laba arki jireen dad inay kitaabkiiba gacanta la saaray intaasoo kitaab baa la maray heshiis baa isku dhex mariyay loo wada daaqay dadkii shalay istilay ka hor dhaartay ay u sii yimaadaan hashan qirta bilaa maqrin kutubtii baa la riday gacanta la saaray way jireen nin walba nabadgeliyo meesha doonta mar wanaagaas oo ku shaqayn jiray saasay sanadkii 1870 ayay dawladii Masar oo wakiil ka ahayd boqortooyadii Cusmaaniyiintu ay qabsatay dhulka xeebaha ku teedsan ee Geeska Afrika sida Tojora, Sayla, Bulhaar, Berbera, Karin, Mayd, Xiis iyo Las Qoray. Sayashee sanadkii 1884 ayay Masar dib uga baxday gebi ahaanba dhulkii Somaliland gaar ahaan xeebihii ay hore u qabsadeen sababta ku kaliftay mixitaankan waxaa lagu sheegaa culays kaga yimid dalkoodii iyo cabsi ay ka qabeen inuu xoogaysto halgankii mahdigii Suudaan oo dagaal kula jiray dawladii Masar waxaana la aaminsan yahay in Somaliland oo ku taala buqcad juqraafi ahaan istiraatiiji ah oo isku xidha badaha saddexda ah ee gobolka sida Badda Cas, Badda Carbeed iyo Badweynta India ay ku dhiiri gelisay gumaystayaashii reer Yurub ee Afrika qabsaday 1884 inay u soo kala dheereeyaan dhulkii ay dadka Soomaalida ahi deganaayeen oo ay Somaliland ka mid ahayd dhammaadkii qarnigii 19aad ee taariikhda milaadiga waxay Somaliland u ahayd xilli ay la kulantay isbedel taariikheed oo dhacdo weyn ah waana xilligii uu ninka cadi yimid qaaradda madow dabeetana isku xeeray oo qabsaday waana xilligii ay waxgaradkii reer Somaliland heshiiska taariikhiga la galeen dawladda Britain kaas oo dhigayay hanaankii korka ilaalinta ee Somaliland British Protectorate wana heshiiska ay ummadda Somaliland kaga duwanayd shucuubta kale ee dunida saddexaad ee uu gumaystuhu qoriga caaradiisa ku qabsaday waxaana qodobadii heshiiskaasi ka mid ahaa kow in aan saraakiil mooyaane askari u dhashay boqortooyada Ingiriisku aanu iman karin dhulka Somaliland sidaas darteedna askarta uu ka qorto dadka reer Somaliland
qodobka labaad ee heshiiskaasi ayaa waxa uu ahaa in xaasaska saraakiisha ciidamada ingiriiska ee ku sugan somalilan aanay ku dhali karin dalka, taasoo ay kaga hortegayeen in haddii uu ilmahoodu ku dhasho dalka uu noqon karo muwaadin. qodobka saddexaad ayaa isaguna qeexayay in aanu ingiriisku dalka ka dhisi karin kiniisado amaba iskuulaad lagu barto afkiisa, iyagoo taasi ula jeeday in aanu xagga diinta ka soo gelin. dadkeenu halka ay ka taagnaayeen waxbarashada ayaa waxaan idin tusayaa example. iskuulka ugu horreeyay elementarygeena waxa laga dhisay sheekh, dabeetana ardadii sheekh baa la yidhi berbere geeya oo soo yaro tusa baddii baa la keenay. aroornimadii ayay yararkiinta lasoo saaray baa physical educationka PE da wixii la odhan jiray soo garanaysid ayaa la ciyaarsiinayay. waxaa jirtay mid inta labada lugood saa loo kala qaado, yarku sidaa gacmaha marba lug loo taabto. ilaan halkan ateera waxaa ku jira qolo culamo ah oo u haysataa nimankan in la gaalaynayo. yararkii markay sidaa u sujuudeen ayuunbaa waxaa isku baagmay xaggay u jeegeen cadceegta soo baxay ahayd. cadceedda ay tukanayaan baa la yidhi bur baa loola soo baxay gow raggii waxaas ku dhaceen Ismaaciil Calabakur baa ahaa ayaa ka mid ahaa. horta halkaynu ka taagnay saasay ahayd. dadkuna khalad may lahayne dee waxay islahaayeen diinta ayana ku mitadaysaan in laydka carqaladaynin. halka qodobka afraadna uu dhigayay in boqortooyada ingiriisku aanay calankeeda ka dul taagin dhulka dushiisa ee uu sudhnaado meel ka sarraysa ciidda, taasoo ay odayaashii dhaqanku ku muujinayeen in ay iyagu ciidda leeyihiin. waxaa sidoo kale heshiiskaasi ka mid ahaa inaanu ingiriisku cid kale ku wareejin karin dhulka somalilan. waa kan mudane cismaan axmed xasan oo ahaa barasaabkii ugu horreeyey ee xornimada ka bacdi. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. سيدا لود أجهي هدي ميل ضل ويمادو عد حكوميسي توحي هرو وحبوك بدلية وحون الله إيمانا يا وحي يسقو يقين لبضنا وكالا وحكومينا واجري في بو كان waxaan inaga inooga keenaynaa hindiya oo xukunka iyo nidaamka iyo habka iyo hindiyo lacagta lagu qaadan jiray dalkana rubiyadan hindiga ayay ahayd. dadkii waaweynaa ka maqasheen gambo iyo caanad iyo rubiyad iyo halkaasuu ka yimi. marka ingiriisku habbuu keenay 6 degmo ayaa dalka u qaybiyey, way kala horreeyeen. marka waxaa u horreysay berbera iyo zaylac, dabeetna markii waxaa xigtay burco oo noqotay meeshii ciidamadu ka duulayeen. waxaa dabeedna xigtay in uu barina dego. wuxuu isku qabtay meesha la yidhahdo laasqori iyo ceerigaabo iyo maynu degayna. laasqori waa fog tahay baa la yidhi, ceerigaabo u daaye. soo socda 20-adii markay ahayd ayaa hargeysa laga dhigay district. shaqada ugu wanaagsan ee dadku heli karaana dawakaraani wax kale la bilayskana ka u sarreeya isbeedel buu ahaa. militarigu isagu ciidan kamalka horka la odhan jiray baa jiray, inta kale saraakiisha ingiriis bay ahayd. bilowgii qarnigii 20aad waxaa bariga somalilan ka bilaabmay halgan xornimadoona oo ay horkacayeen ciidamadii daraawiishta. halganka oo ay xarun u ahayd magaalada taleex oo haatana xarunta gobolka Haysimo. 21 sannadood oo ay daraawiishtu dagaal aan waxba la isula hadhin kula jirtay ciidamadii ingiriiska ayaa ugu dambeyntii waxaa la jebiyey halgankaasi kadib markii ay colaadda soo galeen ciidamada cirka ee boqortooyada ingiriiska oo diyaaradihii dagaal ee ugu horreeyey ee taariikhda ku yimaada qaaradda Afrika dabeetana duqeeya ku burburiyey xaruntii guud ee daraawiishta ee magaalada taleex.
waa kan aqoon-yahan booba yuusuf dacaale. sayid maxamed cabdilaahi xasan 22 sannadood dagaalamayay masraxii dagaalku horta Somaliland buu ahaa. sayidku nin Soomaaliyeed buu ahaa, ujeedooyin Soomaali lagu mideynayo ama gumaysiga laga xoreynayo lahaa, laakiin tii asalkiisu sayidku nin reer Somaliland ayuu ahaa oo xarumihiisii mataleexba iyo dagaaladii goobihii ay ka dhaceen ama jidbaal ha noqoto ama meelo kale ha noqoto xarumihiisii ay ka mid ahaayeen taleex ay ila ku jirtay markii dambe milishi iyo dhulka deganaa masraxa lagu dagaalamayay dagaalka ugu badan wuxuu ku qaaday dagaal hubeysan buu ahaa. sayidku deetaangiye iyo dayuurada iyo mu adeegsanayn, laakiin tii waa lug iyo faras iyo qori iyo si kasta oo ama diinaha ahaato uu adeegsaday ama suugaantii Soomaaliga ahayd gaar ahaan gabayadiisa ahaato kuwaasuu ku dagaalamay. xarakadihii ugu kululaa ay gumaysiga Ingiriiska Afrika kala kulmay ayay ahayd. taasina waxay qasabtay inuu berbere ka soo dejiyo dayuuradihii dagaalka oo furfuran, dabeedna baabuur lagu qaado dariiqa hoose ee berbere ka baxa ee xagal iyo mara inta la mariyay halkaa gobolka Sanaag la geeyay meel aan filayo inay huluul ka yar sareyso oo la yiraahdo weeraarta lagu assembly gareeyay, dabeedna halkaa lagu duqeeyay. waa markii uu lahaa coomaadi duulaya bay cadankan ka keeneen cirkii dhulka isqabsaday calaaqadoodii. marka xarakada adag ee kaliftay in dayuurada markii ugu horeysay Afrika lagu isticmaalo xarakad gumaysidiida lagu isticmaalo xarakadaas oo hogaaminay. inkastoo haddaba ay jabka ka bacdi madaxdii halganka daraawisheed hogaaminaysay ay u tallaabeen dhanka dhulkii loo yaqaanay Soomaali galbeed, haddana halgankoodaasi waxa uu ka tegay dhaqdhaqaaq xornimadoon oo ka bilaabmay guud ahaan Somaliland. waana dhaqdhaqaaqyada hanaanka madaniga ah loo waday ee abaabulka iyo dhiirigelintana ay la dhinac taagnaayeen abwaanadii reer Somaliland. waa kan abwaan Saxardiid Maxamed Jabiye oo ka mid ahaa dadkii suugaanta ku soo bandhigay munaasabadii calansaarka ee 26 Juun 1960. haddii aan u eego xagga gabayga, ninkii la odhan jiray Timcadde iyo Cabdi Iidaan ayaa galaaska ku qaatay. waxaa ka mid ahaa heesii dadka dareenka geliyay ama suugaantii gelisay dareenka Soomaaliya kulliga kulmiya la soo dheeka labaadhaha. waxaa ka mid ahaa Soomaaliya nin gaar hayay iyo guraamooyee dadii waxaa la goora hurudeen geeskii Afrika gabiyo wuxuu yidhi gaal iyo nacabka ay guudegay googooye hilbi ay kala guray idinkoon guuta waa inay gurmato Soomaaliya gidiga markaa gudideen miyaa garateen soo gabataan gobolka ahada. cali sugulana ayay la gambiyay gumaysiga, ayaa guulahay gargaara, ayaa gobonimada garanaya, ayay la gambiyay gumaysiga ayuu asna lahaa. Cabdullaahi Qaasi wuxuu lahaa wiilooy warsama ku meeshanayee wiilooy hees cunsiin waraabaha. oo waxaa ka mid ahaa hangool lisito hashiisa irmaan hamaa la leeyahaanahay. waxaa ka mid ahayd maandeeq iyaduna lafteeda oo ku jirtay suwaadaan sameeyo 59 oo la odhan jiray Gardidwaa la diid. labadii dagaal weyne ee dunida ee qarnigii 20aad soo maray dunidu waxay raad ku yeesheen dhaqdhaqaaqyadii xornimadoonka Somaliland, iyadoo dalkuna masrax u noqday colaadii quwadihii iska soo horjeeday. 1940 waxa ay si ku meel gaara Somaliland uga baxday gacanta Ingiriiska kadib markii uu qabsaday Talyaaniga oo doonayay inuu niyad ahaan ka soo kabto guuldaradii kaga dhacday gardaradii uu ku qaaday waddanka Itoobiya. The war in East Africa. Just around the corner from the Red Sea lies Aden, keeping watch on Empire shipping route. 31 bishii August 1940 ilaaladii ciidamada Ingiriiska ee fadhiyay badda cas waxa ay sheegeen in raxan maraakiibta dagaalka oo Talyaanigu leeyahay ay ka soo tallaabeen gacanka cadmeed duulaana ku yihiin magaalada Berbera, taas oo keentay in Ingiriisku magaalada Berbera si degdeg ah uga baxaan. waxaana magaalada Berbera laga daadgurayay askartii Ingiriiska iyo xaasaskoodii, iyadoo askartii dhalashadoodu ahayd Bangaalka iyo Sawaaxiliga loo daadgurayay dhanka magaalada Berbera. askartii Soomaalida ahaydna loo qaaday magaalada Jabuuti,
qoysaskoodiina loo qaxiyey dhanka magaalada cadan barasaabkii ingiriiska ee somalilan iyo eygiisu waxay ahaayeen kuwo ka baxayay magaalada berbera qabsashadii magaalada berbera kabacdi sidoo kale talyaanigu waxa uu weeraro dhanka cirka ah ku soo qaaday magaalada hargeysa isagoo sidoo kalena qabsaday magaalooyin ay ka mid ahaayeen sheekh burco iyo wajaale And British sea power returns again to complete the operation. bishii maarij 1941 ciidamadii ingiriiska ayaa dib isu soo abaabulay si ay talyaaniga uga qabsadaan magaalada berbera halkaasi oo uu dagaal qaraadhi ku dhex maray goor dambe waxa uu suuro gashay ingiriisku inay talyaaniga ka qabsadaan magaalada berbera wixii xilligaa ka dambeeyeen ingiriisku waxay bilaabeen inay magaalada berbera ka fuliyaan mashaariic dhanka horumarinta waana xilligii ugu horreysay ee leydhka lagu xidho waddooyinka magaalada berbera halka sidoo kalena uu ingiriisku magaalooyinka waaweyn ee somalilan ku fuliyey mashaariic kala duwan maxamed xasan cali weji waa macallin qoraa iyo suxufi rugcaddaa oo wax badan ku og taariikhda somalilan waxaana uu faahfaahin inaga siinayaa mashaariicdii xilligaa ingiriisku dalka ka hirgeliyey dhacdooyinka iyana aan usoo taagnaay qaaliga ahaa waxaa ka mid ahaa in la damcay oo ingiriisku markuu dalka xukumay uu damcay in inantan hadda boqoradda ee Queen Elizabeth ay soo booqato dalkeena laakiin may dhicin waxay ahayd markaa amiirad oo taajkay sugaysay aabaheed George baa boqorka ahaa dabeedna waxay soo maraysay cadan oo ingiriisku xukumay oo inagu horreynayay waxay soo maraysay Kenya balka saddexaad ay imanaysan inagu ahay mashaariic loogu talagalay jiray markaa inay furto oo wadankeena laga diyaariyay wadamada kale ay soo martayna ay ka soo furtay mashaariicda halkan looga diyaariyay ee jinsi inay furto intaan u gudagelin waxa la sheegaya markay ka timid cadan weli idan boqoradii ahayd ay soo gaadhay meeshii leeyahay Nairobi oo ay joogto habeenka hodheel weeyahay Tree Top Hotel waa hodheel geed dushii ka samaysan ilaa maanta samaysan oo lagu daawado Uganda ayaa aabaheed dhintay dhaqanka ingiriiska waxa weeyaan haddii boqorku dhinto qofka boqornimada sugay boqor buu noqdaa waxa la yiraahdaa God bless the king long life the king kii dhintayna waxay lahaan nabadgeliyo kan soo socday waxayaan soo dhawow markaa waa qaadan saarantay markaa boqorad bay noqotay halkii bay ka noqotay innaga markaa mashaariicda loo diyaariyay furo haddaan soo uriyay waxa ka mid ahaa airportkan iyada loo dhisay inay furto laamigu horreeyay Hargeysa laga sameeyay loo sameeyay oo airportka ka imanaysa ilaa State House-ka waa dusay hadda aqalka dawladda aqalka dawladda ninkii markaa arkay uu garanayaa aqal yar buu ahaa laakiin loogu talagalay baabuurku inuu fuulo xitaa oo meel kaabada lahayd waxa yara shabaha hadda oo lagu yara day taliska ciidamadeena waa ka baabuurku fuulo saasoo kale loogu talagalay boqoradda inay fuusho waxa loo keenay boqoradda markaa oo ahayd amiirad baabuurkii laga soo qaaday halka waxaan balahaa dhismayaasha loo dhisay waxaa ka mid ahaa isna wadooyinka laamigan idaacaddeen hadda aan joogno yimaada oo laamigu horreeyaha iyo idaacadda oo la dhisay lafteeda waxa kaloo dhisay goodirka oo maxkamadda saraha waxa la dhisay isbitaalka guud oo loo bixiyay Queen Elizabeth waxa la dhisay dekadii berbera ee ingiriisku dhisay waxa la dhisay aqaladan tuurta leh ee leeyahay dawladaha hoose ee Burco iyo Berbera iyo Hargeysa inkastoo bulshada reer somalilan u badnaayeen reer guuraa haddana maalinba tacigta waxaa muuqanaysay in rabitaanka waxbarashada iyo tacliintu ay ku soo dhex badanaysay bulshada dhexdeeda waana tallaabo ka mid ahayd qorshayaashii dadka caamka ay ku kala fahmayeen farqiga u dhexeeya gumaysiga iyo xornimada brofesor yaasiin xaaji maxamuud xiir farato oo inta badan noloshiisa ku soo qaatay adeegga waxbarashada ayaa inoo sharaxaya maraaxilkii ay soo martay waxbarashada somalilan 1947 ayaa dhaqdhaqaaqii waxbarashadii ugu horreeyay uu bilaabay waxaana bilaabay rag iyo dumar reer somalilan ah oo badankoodu ay ahaayeen dad ka soo noqday ama markii uu dhamaaday dagaalkii
rag ciidamadii ka mid ahaan jiray ama la shaqayn jiray maamuladii ingiriiska ayay u badnaayeen rag kale oo sibil ahaa oo iyaguna maxaato ama rayid ahaa oo reerahooda iyo si uu wax u soo bareen ama qaarkood cadan ka yimi xagga ka yimi iyo waxaasuna way jireen raggaas oo dhan waxaa hogaaminayay oo isku hayay oo hormood u ahaa ilaahay u naxariistay maxamuud axmed cali raggii ugu horreeyay iyo waxaa ka mid ahaa maxamuud axmed cali ay campaignka wada bilaabeen yuusuf xaaji aadan iyo ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa sheef kala yaho abusaliim la odhan jiray rag caynkaas aadan isaaq oo kale uu ka mid ahaa muuse galaal ka mid ahaa jaamac badmax ka mid ahaa raggaasu badankooda askar bay ahaayeen ciidamaday ka soo baxeen oo askar bay ahaayeen ragna rag sibila bay ahaayeen raggaasu campaign bay bilaabeen iskuulladii baa batay dabeedna waxaa bilaabmay fasaladii iskuullada hoose iyo caruurta in loo fidiyo halka waxaan idinku hayaa sawirkii fasalkii ugu horreeyey oo ahaa 1952 1952 ahaa waxaa ku jira ragga aan idinkeedii ka jirto Dr. Cali Qaadi oo ahaa inankii ugu horreeyay iskuul la qoro school formal educationka waxbarashada tooska ah ee dhalinyarada Dr. Cali Qaadi buu ahaa number 1 buu ahaa kadibna meel walba iskuul waxbarashada hogaamin jiray ayaa soo baxay marka saameyn walba ku yeelatay dhaqdhaqaaqina iyada hormood u noqotay anigu waqtiga 57kii baan iskuulka galay waxaan hogaamin jiray bahasha nagu beeri jiray macallimiintayada ahaayeen haddaba sidoo kale muxuu ahaa doorkii ay aqoon-yahanka Somaliland iyaguna ku lahaayeen hawshoodii xornimo doonka waxaa su-aashaasi inooga jawaabaya Professor Salibaan Axmed Guuleed oo haatana gudoomiyaha jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama wadaniyad غير caadi halkan ku jirta dabato waata ahsaabtii halkan la sameeyay saasa horta gobonimo ay ku dhalatay dhaqdhaqaaqi now gudaha halkan waxa aad iyo aad u sii taageeray dadka mutacalimiinta ah dhiman dhalinyaro ah oo fiican oo cadan ka yimi oo badankoodu reer burco bayskoogu ahaa ayaa quwad ku lahaa waxa kaloo jira qolada almadarta ma maqashay idinku almadarta qoladii la oran jiray almadarta waa mutacalimiinta halkan ama karaani ha noqdo ama macallin ha noqdo ila darajooyin waaweyn oo kale ma jirin ingiriiska haysta kuwa kale macallimiintii iyo karaanimintii ayaa mudaharaad dhigay riwaayaday dhigeen ingiriiska ka soo horjeeda waata in badan in doora la qabto bond baa laga saxay inaanay waxa ku noqonin anagu iskuulada markaa ku jirnay kama aan qayb kali kareen oo dareenkaba iyaga noo soo gudbin jireen dadka mutacalimiinta aad iyo aad u kiciyo shacbiga mideeyay marka dadka mutacalimiintu bayska dhaqdhaqaaqa gobonimada ayay ahaayeen oo dagaal ma jirin halkane dagaal ma ahayn waxa fikir siyaasadeed oo ingiriiska laga soo horjeedo taa mutacalimiinta u badnayd odayaashana of course waa ku jireen dad garanaysan rag odayaashii taariikhda lahaa Axmed Xasan iyo ku jiray bayadii gobonimo doonka oo awoodoodii isa soo taraysay ay ku kaliftay inay Ingiriisku maamulka dalka wax kaga daraan dadkii reer Somaliland iyadoo haweenka Somalilandna ay kaalin muuqato ku lahaayeen halkankii dheeraa ee ay ummadda Somaliland u soo gashay xorriyadooda Dictor Saadna Aadan Ismaaciil waa gabadhii ugu horeysay ee Soomaali ah ee jaamacadka baxda waana gabadhii ugu horeysay ee gaari ka haysa waxaana ay muddo dheer safka hore kaga jirtay arrimaha gargaarka bani'aadanimada iyadoo siyaasadana door ku lahayd waxa ay inoo faahfaahinaysaa kaalintii haweenku ka qaateen howlgalladii xornimo doonka ahaa Ingiriis baan joogay ku dhaydo halgamka halka kamaanu maqnayna London baan joognay oo mudaharaad waan sameyn jiray oo kulay Hyde Park Corner waan tagi jiray waan u doodi jiray in Afrika xorowdo oo si duuduuba baan ugu mudaharaadi jiray laakiin se kaalinta ay haweenku ka qaateen Somaliland xisbiyada markaa jiray kaalin weyn bay ka qaateen haday tahay buraanbur haday tahay hees haday tahay maxaan ku raay saad haday noqoto abaabul haday noqoto mudaharaad marka horta in xirsi cabanay ayaa horta magaceedu igu soo dhacdhacaya idii kulay way badnaayeen oo kuma nambay ahaayeen oo ma garan karayo laakiin se kaalintii ay ka lahaayeen ama ka qaateen xornimadu waa tii xornimada lagu soo dhaciyay oo ina rakeligii muu soo dhicin kareen marka waxaan leeyahay haddii uu jiro halgame qarsoon waa haweenka
ciidanka qarsooni waa haweenka ciidanka aan la tixgelin waa haweenka laakiinse waa ciidan cudud aad iyo aad u ballaaran leh oo aan laga maarmayn marba marka ka dambaysa waxaa sii xoogaysanayay dhaqdhaqaaqyadii xornimadoonka ee ay shacbiga somalilan kaga soo horjeedeen gumaystihii waxaana bartamihii qarnigii 20aad curtay xisbiyadii siyaasadda waa kan mar labaad aqoon-yahan boobe yuusuf dacaale dhaqdhaqaaqyadii axsaabtii siyaasiga ahayd ee qaabka siyaasiga u halgamaysay oo ururadaasi ay markii hore si khayri ah ugu bilaabmeen laga yaabaa magacyo reerood iyaga oo leh 1933 ayaa Somali National Society ay burco ka samaysmaysaa isla sanadka 1933 waxaa la furayaa khayriyada Hargeysa oo lagu dhisay tabaruc iyo iskaashi dadka reer Hargeysa iyagoo reer Hargeysa dareenku halkaas uu ka dhalanayo kala guurkaas jiray reernimadii laga soo guurayay dabeedna reer Hargeysanimo loo soo guurayay dabeedna Soomaali loo soo guurayay dabeedna axsaabtii waa saa ku dhalatay SNL NUF oo hogaaminayay halgankii siyaasiga ahaa ee adkaa ee lala galay gumaysigii Ingiriiska ujeedooyin badan bay dadku lahaayeen oo ma ilahayn oo kaliya in gumaysiga la iska xoreeyo horumar aqoon caafimaad ujeedooyinkaas ay lahaayeen ujeedada ugu weyn ee laga lahaa xarakadaasina waxay ahayd ay dadka Soomaaliyeed ka midaysnaayeen sidii loo abuuri lahaa dalweyne la yiraahdo Soomaali weyn oo ka koobnaa markaa riyadaasi jirtay 5 oo kala ahaa Somaliland maxamiyadda Somaliland Francisco gumaysanayay oo Djibouti maanta gobolkan kililka shanaad la yiraahdo Ethiopia gobolka NFD loo oran jiray ee Kenya ka tirsanaa gobolada waqooyi bari loo yaqaano iyo Soomaaliya iyo Talyaaniga gumaysanayay sidaas halganka siyaasiga ahaa ee dheeraa ayay ku xorowday maxmiyadii Ingiriisku gumaysan jiray oo ay maanta u dabaaldegayeen 58 guuradii 26 Juun 1960 sanadkii 1957 waxaa la sameeyey golahii la tashiga oo ka koobnaa xubno Somalilander iyo Ingiriis isugu jiray waana gole matalayay guud ahaan deegaanada Somaliland waxa kontonadii la sameeyay wax la yiraahdo Legislative Council ama guddi goynaysa sharci samaynta sharciga ay samaysay mid qabaa'ilka wax laga soo magacaabay lama soo dooran governorka ayaa wali sharciga sameynayay governorka ama barisaabka iyadoo sidii ayaa 60kii la gaadhay madaxdii siyaasadda iyo kuwii dhaqanka ee Somaliland ayaa xilligaas socdaal xornimadoona ku tagay xarunta qaramada midoobay iyo dalalka Ingiriiska Mareykanka Itoobiya iyo meelo kale waa kan mar kale Professor Salebaan Axmed Guuleed mid waxa loo diray reserve area purely ka ay salaadiinta iyo labada suldaan iyo Michael Olkaas ay ahaayeen tan dambana markii qoladaasi ay noqdeen ay soo noqdeen axsaabtii la sameeyay ayaa dhaqdhaqaaqii gobonnimadoonku bilaabmay halkan oo la rahan naga baxay Ingiriiski markaa wada xajood buu ugu yeedhay colonial office-ka afartii wuxuu u yeeray waa tii doorasho la qabtay doorashadii 4 wasiir baa la sameeyay maxamed xaaji ibraahiga leader u yahay isaga iyo cali garajaama iyo xaaji ibraahim nuur iyo axmed kayse afartii baa London tagay Ingiriiski la xajoodo ee gobonnimada nooga kac waa garanayaayo 2 jeer baan Hargeysa iyadoo rash ka dhacayso sheekh baa ku jiro ka soo baxay mar waxay ahayd Hammarskjöld baa dhintay baa la yidhi Hammarskjöld waa xogay guud qaramada midoobay oo Afrika oo dhan baa ku kacsaneed waa ninkii la mubadilay baa la oran jiray Hammarskjöld baa diyaarad la dhacdo dhintay Hargeysa wada rashaan kay la bariga waxaan ahayn caalamka inuu la soconayo Afrika oo dhan dabeel baa martay markaas war maxaa dhacay baaruudan ciidna ma ahay masaal ninkii baa dhintay anana farxadii baan ku daray tan labaadna April ayaan soo galay Hargeysa anagoo sheekh ka nimi kan nimid xaga sheekh war maxaa dhacay gobonnimada Ingiriiska ogolaaday bal afartii wasiir baa laga ogolaaday marka inuu Ingiriis naga kaco June 26 gobonnimo la qaato ugu dambeyntiina 26 Juun 1960 ayay Somaliland si rasmi ah u qaadatay xorriyadeeda iyadoo aqoonsi buuxa ka heshay dalalkii joogtada ku ahaa golaha ammaanka sida Faransiiska, Shiinaha,
maraykanka ingiriiska iyo midowgii soofiyeti halka sidoo kalena ay somalilan aqoonsadeen dalal ay ka mid ahay jamhuuriyadda carabta ee masar munaasabado kala duwan oo xornimada loogu dabaaldegayeyna waxaa lagu qabtay guud ahaan somalilan maalin murankiyo akeekmihare wamaalila ay maashee waa kan mar kale maxamed xasan cali weji oo lafdigiisa goobjoog ka ahaa munaasabadihii calansaarka ee magaalada hargeysa habeenkii iyo maalintii 26 juun 1960 waxaan ugu jeclaan lahaa 48 saacadood ee xaaladda 26 juun lagu jiray inaan barto marka hore ka sheekeeyo waliba waqtiga anoo goobjoog ahaa oo taagnaa inaad ka warramo ayaan jecelahay 48 saacadood ama 48 saacadood Somaliland waa markii gobolka qaaday xaaladdiisa yahay Somaliland caasimadeedu markaana si maanta u tahay ayaa Hargeysa caasimad tahay waxa isu yimi Somaliland goboladeeda iyo degmooyinkeeda oo dhan ayaa u soo diyaar garoobay oo halka yimi u sicirka loo tuuraa dhulku kuma dhacin magaalada intan meel la keenay way ka koobnay hudheeladan waaweyn iyo meelaha kala saxdo iyo waxa lama haynin dadku iyaga marti gelinay waana la isugu wadayimi dadka inta badan habeenka ma bay seexanba iyo farxadii abtii baa la isugu yimi garoonka ka soo horjeeday jeelka halkan hadda oo ka dhisay masaajidka Ibrahim Dheere ilaahay xariisana ka waraabiye oo garoon ahayd calanka Ingiriiska lagu dejinayay halkan waxa yimid dadka ummadoo dhan oo eegaysa calanka loo dejinayay Ingiriiska madaxdiisina way wada joogeen barasaab oo horkacayo ciidan Ingiriis ayaa salaanta bixinayay oo bamboyda music tumaysa waxay ahaayeen cadan baa laga keenay waxay ahaayeen Ingiriis halkaasii music ka tumayay dabadna markay saacadu ahayd 6 iyo merid ayaa calanka Ingiriiska halka laga dejiyay khudbad buu ka akhriyay barasaabka halka uu ku sagootayo ummadda Somaliland kuna warramayo waxa Ingiriisku damacsanaa iyo xaalku noqday halka markii laga dhaqaaqay dadku waxay isku shubeen beerta xorriyadda oo la sugayay calanka laga taagi doono 12 daqiiqad sideedii markay ahayd ayaa bilaabmay dabaaldegu ilaa 12 uu socday reeriyo Hargeysa oo ahaa reeriyogu u da'weynaa markaa reeriyo Soomaaliya ku hadla ayaa barnaamijkaasi toos uga baxay barnaamijkaasi wuxuu ka koobnaa madadaalo maaweelo iyo wacyigelin ay jeedinayeen kooxda la oran jiray reeriyo Hargeysa la oran jiray laakiin magacooda asalkii walaalaha Hargeysa laakiin kooxda reeriyo Hargeysa ugu weyna Cabdullaahi Qarshi iyo Xuseen oo Faarax iyo rag waaweyn ku jiray gabayah halka laga jeedinay heesaa laga jeedinay hees waxa soo dhigay taariikh baa 12 daqiiqad markay ahayd ay calanka la taagay dadna waxa khudbad akhriyay barasaabka Ingiriiska oo ku wareejinaya maamulkii dalka محمد حاج إبراهيم قال له نحسن كورا بيه ونقضي الوزاري وهري ذلك يكون يجيني مركزنا أو برلمان كهرا روسي دورته ويجرينه سوى برايم مينستر خد بدي سوى كسوق قاد لاين سوى فرحسن لها وقصل يبرسابكو منك عن شرح حباي أيام كون فرحسن هاي ما أنت إن كوري شو حلك ذلك سوى كذا قال هل كاسهرت فرحت بكبلابتي لما بس حنبا أرد بمجال القصوى قلي يفرحت صبحين واحد اللي يسوي تقول دبادب كل عيادنا هالكا إسبيتال كأدمانت كل سنة هاي ولو نشي جرون كبولوغ إذا ما بي سومالي سكاوت كاي نقوم اللي تربي معين ولما تانجي دي نهار السعودة ولما تانجو إنجليز كنا نقول تجاها قال الله يرحمه السلام تكوقات وهالكا لطبنا إلا تبنيه إذا هالكا سكة صور دقائق صعد وأي صومرين هالكا توتال بيكسو وريجين ولام يهج وحي صوت قال إلا هاد وناك إلا هالكاسيك جوهين حردونا ويدت كل مود الدبيع عين ولو تبالتقي زود كلتنا وعيو السماء وقرن تاكتا
مساكينوغو رئيسو لنسيليتيهيو لنقرانا سقيني زدعوه يوم هرمو هدن زرغني وغايو زفر الله إذا ما يغابو muxuu haddaba sharciga caalamiga ay ka qabaa dowladnimadii Soomaaliland ee dhalatay 26 Juun waa kan garyaqaan Yuusuf Cali Xasan oo ah sharciyaqaan la shaqeeya bulshada rayidka ah ee Soomaaliland sideedaba dal marka laga hadlayo dawlad leh qarannimo sheeganaysa ama madax bannaani sheeganaysa waxa ugu horeeya wax la yiraahdo dhulka haddaanu dhul jirin qarannimo ma jirto dhulka Soomaaliland ay leedahay wuxuu ku saleysan yahay heshiiska oo ay saxeexeen dawladda Ingiriiska iyo Talyaanigu kan waxa weeye 1894 weeyaan waa saddex heshiis baa jiro oo leeyahay Anglo-Italian, Anglo-French, Anglo-Ethiopian heshiiskii ay gashay markaa dawladda Ethiopia waa ka isaguna 54kii iyo heshiiskii ahaa 1897kii heshiiska dawladda Ingiriisku ay nala gashay qaramada midoobay baa laga diiwaan galiyay waa kaas isaguna heshiiskii qaramada midoobay laga diiwaan galiyay lambarkiisu waxa weeyaan 374 heshiisyadaas waxay sameeyeen maapka Soomaaliland waa maapka ay Soomaaliland maanta aynu haysanaa heshiisyada uu ku dhisan yahay dalka Soomaaliland wuxuu ahaa protectorate shuruucda caalamiga ah iyo rekoorkana way ku qoran tahay inagoo inay Soomaaliland ahayd dal protectorate markii la soo gaaray 25kii bishii June boqorada dawladda Ingiriiska waxay ku dhawaaqday inay Soomaaliland tahay dawlad xor ah si public ah ayaa waxa loogu soo daabacay London Gazette waa Gazette-kii London waa kaas waxa lagu soo daabacay London Gazette in Soomaaliland tahay dawlad xor ah waxa ku qoran maxkamaddii laga diiwaan galiyay aqoonsiga Soomaaliland waxa lagu soo daabacay oo kale mid la yiraahdo Baltet Gazette oo official ah oo iyadana London ka soo baxday oo macal maxkamaddii baa ku qoran Soomaaliland marka madax banaanideeda laga diiwaan galiyay waxa kale oo ku soo baxday Edinburgh Gazette iyadoo marka madax banaanida Soomaaliland ay ku qoran tahay iyo meeshii laga diiwaan galiyay maxay maxkamaddii saddexda markii halka markii ku soo baxday 16 June markii la soo gaaray waxa jiray heshiiskii London lagu galay 12 May waxa ku qornaa marka xornimada Soomaaliland ay qaadanayso through exchange of letters in waraaqo la isdhaafsanayo sida marka ay xorriyadu ku imanayso qodobka Afristanaad bay ku qornay waraaqihii la isdhaafsaday waa kuwan waraaqii ay Soomaaliland iyo dawladda Ingiriiska isdhaafsadeen waa kuwan waxa ka kooban yahay 5 heshiis oo kii dhulka Soomaaliland markii lagu wareejiyay uu ku jiro dawladda Ingiriiska waxa la geeyay baarlamaanka Ingiriiska ayaa loo gudbiyay oo markaa isagu baarlamaanka Ingiriiska uu ansixiyay markaa waxa ku qoran heshiiska madax banaanida Soomaaliland ee dawladda Ingiriiska heshiiska marka hadaad haysato ama 5 cisho madax banaanow ama 5 saacadood ama 50 saacadood waxa tay dawlad xor ah heshiiska ugu dambeeya waxa weeyaan heshiis la yiraahdo 5 waxa la yiraahdaa 5349 wuxuu leeyahay haddii dawladda Soomaaliland ay dhulkeeda ku wareejiso dawlad kale jurisdiction-keeda dawladda kale ayaa yeelanaysa xuquuqdii iyo waajibaadkii ay Soomaaliland lahayd dawladda Ingiriiska haysay ilaa imkana ma jiro heshiis qaramada midoobay yaala oo Soomaaliland ay xuquuqdeedii qarannimo iyo dhulkeedii ay ku wareejisay cid kale mar haddaanay taasi jirin automatically waxa tahay sovereign state marka inaga maalinteennii aynu xornimada qaadanay waa 26 June 26 June baa loo baahan yahay inaan faynuuska la gaabin ee faynuuska la dalaco xornimadii ay Soomaaliland xilligaa qaadatay waa taasaaska waa aqoonsiga ay Soomaaliland maanta ka dalbanayso beesha caalamka waana madax banaani ay dhammaan dhinacyada siyaasadda Soomaaliland isku fikrad ka yihiin oo dhinacyada ka taagan yihiin Professor Ismaaciil Hurre Buuba waxa uu ka tirsan yahay siyaasiyiinta waaweyn ee reer Soomaaliland waana xubin ka mid ah madaxda sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana uu qaab diblomaasiyadeed oo qoto dheer uga hadlay qiimaha ay 26 Juun u leedahay qarannimada Soomaaliland waa maalintii istiqlaalka Ingiriiska laga qaatay
waa maalintii hadilmi xamaasad weyn oo jirtay aawadeed hadilmi muxuu ahaa calanka hadii laga taagay Hargeysa waxa weeyaan kolkaas maalintaasi waa maalin dadka yuhuunta hadilmi muxuu ahaa gudaha kolka loo fiirsado waxa isu haya Somaliland waa 26 kolka dhinac kale laga eego hadilmi qaanuunka iyo diblomaasiyadda la eego 26 Juun waa maalintii hadilmi Somaliland ay ka qaadatay xorriyadda dawladda Ingiriiska dawladaha Afrika waxa lagu asteeyaa mid walba laba wax cidii xukumi jirtay xuduudda ay lahaayeen iyo waqtiga ay hadilmi muxuu ahaayeen ay istiqlaalkii qaateen kolkaas Somaliland kolka ay doonayso caalamka inay hadilmi u dhigto hadilmi muxuu ahaa u bandhigto hadilmi muxuu ahaa i'tiraaf doon oo kale taariikhdeeda ayaa hadilmi muxuu ahaa muhiim ah taariikhduna hadilmi waxay ku sugan tahay jiritaanka Somaliland oo dawlad xor ah wuxuun bay suuragal noqotay 26 Juun waxaanay hadilmi muxuu ahaa ka xorowday dawladda Ingiriiska 26 Juun wax kale ayuu haddana salka ku hayaa Somaliland hadilmi muxuu ahaa hay'adaha hadilmi muxuu ahaa wax qabta militariga civil service-ka hadilmi muxuu ahaa baarlamanka taariikhdoodu qudhidoodu 26 Juun ayaa hadilmi macno weyn u leh waayo ma aha un hadilmi dooda Somaliland ay caalamka hordhigaysaa ay Soomaaliya hordhigaysaa inay tahay 26 Juun maalintii hadilmi muxuu ahaa hadilmi asteynayay Somaliland oo kaliya laakiin taariikhdeedu inuu hadilmi muxuu ahaa taariikhda Soomaaliya iyo taariikhda Somaliland waxa kala sooca waa 26 Juun iyo boqolkii sanadooda ka horeeyay ay Somaliland ahayd hadilmi muxuu ahaa mustacmarad dawladda Ingiriiska waxa jira wax la yiraahdo geopolitical entities ambaba hadilmi muxuu ahaa xuduudaha iyo jiritaanka hadilmi muxuu ahaa uu qeexo hadilmi muxuu ahaa geographiga mandaqad lagu nool yahay de waxa weeyaan taariikhdeeda siyaasiga ah taariikhda Somaliland hadilmi muxuu ahaa for example hadii la soo qaato military oo kale wuxuu ka dagaalamay hadilmi muxuu ahaa hadilmi muxuu ahaa dagaalkii labaad caalamka ayuu ka dagaalamay Barmo ka dagaalamay hadilmi muxuu ahaa East Africa oo dhan hadilmi door weyn bay hadilmi Somaliland ka ciyaartay kolkaas hadilmi muxuu ahaa 26 istiqlaalka ay ka qaadatay Somaliland ay ka qaadatay Ingiriiska taariikhda hadilmi la socoto dhan ayaa hadilmi muxuu ahaa macna u yeelaysa jiritaanka Somaliland aqoonsiga Somaliland gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Buuhoodle Saleebaan Cabdi Xuseen Dhagaweyne ayaa waxa uu shacbiga Somaliland dib u xasuusinaya sida ay lama huraanka u tahay in la ilaashado xorriyadda 26 Juun 26 Juun inay ahayd maalin xorriyadda Soomaaliyeed laga taagay jamhuuriyadda Somaliland waa maalin qiimo ku leh Somaliland xorriyaddii markii la helay ayaa waxaa qaldamay midowgii laba dawladood baanu ahayn waxaa ilaahay mahadiya in la fahmay qaladkii dhacay maantana ummadda jamhuuriyadda Somaliland ay dalkeedii si xor u maamulanayso waxaan kaloo rabaa inaan hambalyo uga diro halkan ummadda jamhuuriyadda Somaliland min daraf ilaa daraf Somalilandnimada lama doortay ilaahay baa dad ka dhiga waxaad adigu inaad noqoto wax laga weydiinayna ma ahayn generationkeenan aniguba aan hadda dhalinyarada ka ahay waxaan rabaa inaan fahamsiiyo Somalilandnimadu waa dhulka oo waynu wada leenahay qolana gaar uma leh waxa naga dhaxeeya waynu wada leenahay oo aan cid gooni u sheegan kartaa jirin way waxaan ku hambaleynayaa min daraf ilaa daraf xorriyadda 60kii la qaatay hadday qaldantay soo noqotay waa inaynu ilaashano taas baa muhiima nabadda wada ilaashano horumarka ka wada shaqeysano
waxaan hambalyo gaara imika u dirayaa oo halkan rabaa inaan u mariyo ku xuso ciddii inoo suuro gelisay maanta nabadan iyo noloshan iyo barwaaqadan aynu haysano ee ku haysano dalkeena Soomaaliland midhadhalkii madax bannaanidii ay Soomaaliland ka qaadatay Ingiriisku waxaa caqabad ku noqday dhibaatooyin ay ugu weyneyd midnimadii aan la mahadin ee muddada 30 sannadood ay ku wada jireen dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ka hor intii aan halgan naf iyo maalba loo huray oo horkacayay dhaqdhaqaaqii SNM dib loogu soo celin madax bannaanida ay Soomaaliland ku naaloonayso maanta iyadoo beesha caalamkuna mar kale soo celisay macaamilkii qaabka dawladnimo ee ay Soomaaliland kula dhaqmaysay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCUD injineer Faysal Cali Waraabe ayaa isna dhankiisa ka hadlay maalintii la taagay calankii u horeeyay ee Soomaaliland maalintii waa markii dabayshii ay noqotay gobonimo doonka ay gashay Afrika ay ka mid ahayd markaa Ingiriiska iyo Faransiiskana ay goosteen inay hayn kareen ay wadamada Afrika ka xornimada siiyaan marka wadamadii u horeeyay nasiibka helay calanka qaatay baa marka waxa way tar waa maalinta inagana wada xiriirsan reer Soomaaliland aniga barnaamijka waxa ku taala aan sameeyay 2000 waxaan qolay 1997 inta asxaabta la sameeyay baan qornay barnaamijka waanu kala saarnay anaga haday ma akhridaan dadka waxa ma akhriyaan sidii tobankii may waxaan ka dhignay victory day oo maalintii guusha laakiin maanta national day ee Soomaaliland oo dhan ay wada lahayn waxa weeye 26 Juun marka waa maalinta caynka oo taariikha Afrikaanka marka qaadatay dabeesha xornimada ku dhacday waa baart marka waxaan yiraahdaan calanka waa maalinta oo calanka Soomaaliland taagay calanka Soomaaliland waa calankii Soomaaliland baa la taagay calanka Soomaaliland waa waxyaalaha idiga horkacay taariikhda la baabaynay عن سومال متى هي ومانتي سومالنا حرنا ماذا قاعدة إنجليز كقاعدة يا أيوي قبل ما هنا استيد بانه أيام مدحوينها جمهورية الصومال مدن موسى بيحي عبدي وحاو دنبال همبليا أو ديراي قود هم بالشعبية صومالي لان حرمة كقاعدة دولة إنجليز كا إلهي مهدي هالجندير وستيت سنة كل هذا oo ummadda reer Soomaaliland ugu jirtay xorriyadeeda inay hesho ayaynu maalintaa ku guuleysanay gobonimada ay Soomaaliland heshay waxay ahayd tii ugu horeysay ee dal Soomaaliyeed ama dad Soomaali afka Soomaali ku hadla ay qaataan Soomaaliland wuxuu ahaa qaran ku dhisan xuduudihii isticmaalka kaga tagay Afrika ay Afrikana ku heshiisay 1964 maantana ururka Afrika dhisay uu ku dhisan yahay dadka Soomaaliland iyaga oo u codeeyay 27 Juun 1960 inay la midoobaan Soomaaliya oo markaa ahayd gobol Soomaaliyeed oo ay xogto jibcida qodobka ka dhaxaysa Talyaaniga u dhiibtay ayaa baarlamaankii Soomaaliland iyo xukuumaddiisii u codeeyeen inay midoobaan Soomaaliya waxa la sameeyay oo baaskareeyay baarlamaankii Soomaaliland heshiiska midnimada lagu midoobi doono labada dawladood July kowdeedii markii uu xilka ay ku wareejiyeen Talyaanigu Soomaaliya isla habeenimada iyada oo aan wax heshiisa dhinaca koonfurta ka imanin ama Soomaaliya kii Soomaalilandna aan baarlamaanka wada heshiinin ayaa lagu dhawaaqay in ay qaateen xorriyadii isla markaana iyagu la midoobeen hadda halkaa aynu aad ugu fiirsano Soomaaliland oo xora oo baarlamaanka go'aamo soo gaaray oo dawlado badan oo dawladaha waaweyn adduunka ictiraafeen oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha wada ayay ku soo biiraysaa Soomaaliya oo markaa gumaysanaya Talyaanigu wax isla habeenkii ay qaateen iyagoo gaar u taagan wax sharciyaba aan gaarin ama shirba aan gelin iyagoo dawlad gaar u taagan marka dawladda Soomaaliland jirtay ku soo biiray hambal iyo mar labaad xadka Juun ilaahay waxaan kala jeedayaa bishaabishada inaga oo horumaray nabad helay horumar gaadhay dhinac walba in ilaahay loo rajeenayo
ومال المورنكيو أكيد مهاري ومال لا أي ماشي المال مخشي المال Allah